waxaan halkan ka shaacinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba sharaxnimadeedii inaan u taaganahay reerkuna noqon maayo mid maqsin go'aankiisa lagaga gaadho reerku ka balaaran yahay gudida garabka ka raran ee aan xaq soorka ahayn ee kitaabkii Ilaahay garab maray lagu dhaariyay waxaanu leenahay ma soconayso guntiga gabagabadeedii in dhaqanku arrinka dib uga noqdaan dhaqanku arrinka ay noqdaan dhexdhexaad bismillaah assalaamu calaykum dhamaan shacabweynaha Soomaaliland aad baan idin salaamayaa magacaygu waa Maxamed Cabdilaahi Cumar musharax u taagan golaha wakiilada Soomaaliland gobolka Maroodijeex gaar ahaan degmada Arosyo gobolka Gabiley waxa aan ahay musharaxii u horeeyay oday dhaqameedka beelweynta Baha Cumar hortaga arrinkiisa u bandhigta u bayaamiya waxaan bilaabay hawshayda 2024 bishii December waxaan hawsha ka bilaabay meesha ugu hooseysa ee dhaqankeenii hore ahaa ee laga bilaabo oo ahayd jufo laf ilaa ma yarda si qurux badan baa waxaan anigoo ku dadaalaya sidii ugu quruxda badnayd ee dhaqanka ahayd inaan hawsha u dhameeyo aan ka soo bilaabay meeshii u hooseysay markaan halka marinayay ee si qurux badan u soo bilaabay ee aan intaasoo shir iyo intaasoo lafood iyo jufo baan soo marinayay waxaan keenay in ardaagayga aan soo gaarsiiyo dabadeedna ardaaga aan oo wadaagtanahay aan gooni ula kulmo saddexda ardaa markaan ka soo dhamaadayna aan isku dayay amba aan ka shaqeeyay shirkii ugu quruxda badnaa ee isugu yimaanayeen laftaanahay oo si qurux badan halkaasi lagu go'aamiyay inaan matalaada aan yeelanayo markii halka ay soo gaadhay beeshu waa laba lafood laftii kale waxaan u dhignay gogol waanu nari gogashii wada hadalka keena amba isugu kaayo keena diidma nagaga timi xagga oo waliba cudurdaar wadatay oo ahayd in aan wax hore noo oolin oo hadda aynu u baahannahay inaan wax qala qorano oo aynu si fiican wax meel isla dhigno oo ay taa ku joojiyeen gogashii aan u dhignay ayaa waxaan ka doorbiday intii hadalkayman lahaa amba kala jabka iyo kala furfurnaanshiyu kayman lahaayeen inaanu yeelno maadaama ay cabashadu xagga kale ka timi tooda in loo raaco cabashada waliba aan fikir ka soo jeediyay marka halka la isla gaaray baa waxa lagu baaqay maadaama ay rabadaan soo gasheen rabadaanta ka bacdi arrinka loo dhigo arrinkaygan 3 bilood soo wadayna dib loo celiyo leeyahay waa ka bariyaan oo arrinka dib u dhigno arrinkaanu isaga soo noqono waxana la soo raaciyay in leeyahay maadaama oo aynu wax meel dhiganayno kiina aad idinku wadataan ka kaalaya anagoo waxba wadana waanu shari doonaa waxbayanada idinku daalinay waxa lagu bayaamay rabadaan ka bacdi shir weyn reerku inuu isugu yimaado shirkii baa reerku isugu yimi shirku laba waji buu lahaa wajiga koowaad oo lagu go'aamiyay in guddi reerka loo saaro shirka koowaad markii guddida la qaaday in guddi reerka loo saaro ayaa waxa la isla afkartay in odayaasha oday beeleedyada iyo caaqiladu ay qolo walba intii ay guddida ku soo dirsan lahayd 12 lafood ee beeshu leedahay ay isla soo afkartaan ay soo gudbiyeen lafta aan anigu ahay amba dhinacan anigu ka soo jeedo 3 ardaan oo hayn 3 qof baa looga baahnaa 3 qof waxaanu isla qaadanay aniga iyo odayaashii dhammaan dadkii caaqilkiiba inaan 3 qof oo halkar iyo aqoonyahanka beesha in la noo geeyo maalintii dambe nuxnuxna soo gaadhay habeennimadii waxa la bayaamiyay 3 qof ee aan anigu diranay aanu caaqilka u dhiibanay in laga saaray oo aan gudida kuba jirinba feeskii labaad ee shirka la isugu soo noqonayay waxaanu isla qaadanay inaan ka qayb gelin laftaan anigu ahay annaan tagin illa ma iyo naloo eegayo in loogu soo celiyo sidii sharaftu ahayd 3 xubnood ee aanu soo gudbisanay shirkii oo ay ka maqan yihiin 3 ardaa 12 ardaa ee beeshu leedahay ayaa shirkii wax lagu ansixiyay si ay ka maqnaanshihii laftaasi 3 ardaa iyadoo ka maqan baa shirkii lagu ansixiyay guddida maanta taagan la leeyahay waa guddi markii shirkii sidii lagu ansixiyay ee guddida sidii lagu qaatay ayaa waxa lagu fidiyay maalintii ku xigtay gogol loo dhigay odayaashii amba ardaayadii ka maqnaa 3 ardaa ee laga bedelay 3 xubnood gogol ay u dhigeen chief caaqilka guud iyo caaqiladii markaa joogay gogoshiiba waxa lagu go'aamiyay amba ay gartoodii ku tirsadeen
in maadaama oo sida ay wax u rabeen ay u heli waayeen looga dhigi doono guddidan inay nustambeed u noqonayaan nustambeed ahaan ayaa lagu soo qanciyo wax lagu yiri guddida maadaama sidii aad u soo gudbiseen leedin ku fulin waayay guddida nustambeed baad u noqon doontaan wixii qaldama iyo wixii saxaba idinka ayaa leedin daba fadhiisan doonaa tiina may dhicino maalintii xeerka soo gudbinayeen waxay toos bareer ah odayaasha ugu hor yiraahdeen inaanay guddidani mandate haysato aanay wax odayaala iyo wax sixitaana iyo wax la yiraahdo nustambeed aanay lahayn marka inta laga yimaado intaasoo hawloodoo dhacday iyo intaasoo dhibaato ah amba aan tabanaynay waxaanu ka horomarinay amba anigu shakhsi ahaan waliba aan taladeeda lahaa in midnimada reerka isu xidhnaanshiyaha reerka iyo aanu ka shaqeyno si gobonimo ku jirto inaanu horumarka iyo matalaad la'aanta inta 34 sano Soomaaliland jirtaba aanu golaha wakiilada ku lahayn aanaan tan yeelin wax cudur daarana aanaan ogolaanin waliba anigu midnimada reerka midnimada iyo suimaanshiyaha reerka aad u doorbidaya guddidii sidii bay ku noqotay guddi markii halka mareysay arintu ayaa waxa guddidii dib ugu noqday waxaan wararintu talo intii ku qaadanaysa waxa la ii sheegay amba maalinta ay bayaamiyeen guddida bar kamidii inay arintu 3 bilood ku qaadanayso waxana la ii soo jeediyay inaan 3 bilood gudahood dalka ku imaado dalka markaan imaadana arintu dhamaanayso waan weydiiyay si specific waxaan ku waqtiga aad isleedihiin weydiin imaanaysa iyagoo bisha afraad la doortay waxay ugu yiraahdeen 2 bilood ilaa 3 bilood oo ku soo gabagabeynayna 3 bilood markay wateen baan anigu dalka qabtay oo bishii 7aad bishii 8aad oo ay iyagu goosteen yiraahdeen 7aad 8aad waxay ugu noo dhameystirayeen marka bishii 7aad ba af 3deedii baan tagay adu 5teedii gacantan ku hayay haddana guddidu markasta waxay cuskanaysay inaan xeerkii wali dhameystirin oo qabiyo qoraaliye si fudud igu soo galayba waxaan halkan ka bayaaminayaa inaan musharaxnimadeedii aan u taagnaa aan wali u taagnahay kana tanaasuleynin waxa weeyaan marka la cuskanayo xeerka ah war wax meel inoogu qornaa may jirin aan wax meel dhigano inagu haddaynu nahay bulshooyinka Soomaaliland degta waxaanu nahay oral traditional cid wax meel ku qorata may jirin dhaqankana waxa dhexdiisa ka dhaca xeerku galaa dhaqanka dhexdiisa waxa ka dhaca xeerku galaa hadii doorkii hore ay reer fuleen doorkan reerka kala bilaa hadal ay ku iimaan jireen sidoo xeerku ahaan jiray hase haddii aniga la yuuskado faldugmiyeedka ah waxba meel inoomay oo liina doorkan wax soo kala qoranayna dabadeedna iyadoo guddida reerkiiba badmaqan yahay haddana guddi abaabul ku socota la ansixiyo waxna qabanaysa iyo waxnu qaadanayno iyo waxnu ku go'aan qaadan karno toona maaha guddida garabka ka raran ee aan xaq soorka ahayn ee kitaabkii Ilaahay garab maray lagu dhaariyay waxaanu leenahay ma soconayso go'aanka la qaadan maayo ma ahana midaanu qolqol joogtana loo fudeediyo qurba joogana lugaha lagaga xidhan noqon maayo xeerka ka soo horjeeday dastuurka Soomaaliland ee qoratay aan meel ay laga keenay iyo qof aqli saaxiib iyo aqoon saaxiib waa toona uu qaal xeer noocaas uu qori kara ah waxaan ku soo ganaanadayaa guntiga gabagabadeedii in dhaqanku arrinka dib uga noqdaan dhaqanku arrinka ay noqdaan dhexdhexaad oo ay marjici loo noqonayay dhaqanka madax meel ka sareyso la salaaxa ma jiray inay noqdaan inay dhex ka noqdaan in reerka badhkii maqnaa ee aan ku mideysnayn guddida iyo arrinka guddida toonaani kula soconna inta loo noqdo laga tashado reerka dib la isugu celiyo badhkii shalay hadlay iyaanoo maanta hadlaya iyo inta soo guuxaysaaba ay maanta caddayn u tahay in xeerka iyo guddidaasi toona aanay sifadii sharciga ahayd iyo sifadii qurux badneed ee midnimada aanu ku rabnay ay baalmareen ayna yihiin guddi garab ka raran oo aan matali karin reerkuna noqon maayo mid maqsin go'aankiisa lagaga gaadho reerku ka ballaaran yahay bulshooyintu way ka ballaaran tahay bulshooyinta sifo kala looga noqon doonaa dhaqankana waxaan farayaa dhaqankayga baatiin maamuus baan idin hayaa sharaf iyo ciise baad iga mudantiin hase ahaatee arrinka in dib loo eego arrinka garabka ka rarana in laga saaro midnimada reerka lagu dadaalo
waa ka shaqaysaan idinkaa hoggaankiya idinkaa qabatinkii reerka ah waxaan halkan ka shaacinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba sharaxnimadeedii inaan u taaganahay halkan aan uga shaacinayo ama aan uga sheegayo taageerayaasheedii sharafta lahaa min Hargeysa min ilaa Wajaale ilaa Lughaya loo yacdo inaan u taaganahay oo aan si fayro fudud leeyahay kaxayn karaynin aragtidayda iyo hanka aan yeeshay dhammaantiina aan idinka mahad celinayo taageeraha aad ii muujiseen ilaa ma iyo intay hawshu bilaabantay ilaa ma iyo maanta aad igala socotaan bulshadayda aan aqoonta intaa le ku tuhmayaana aanay noqon karin bulsho ay maqsin looga go'aamiyo arrinkooga bulsho ka kortay caamadii iyo aqli la'aantii hore ay jirtay maantana bulsho aqoon leh oo aan siyaasadooda la dilaali karin alxamdulillah haddii maanta aan bulshada aanu ku soo beeganay oo nasiibku nagu sameeyaan bulshada dhexnimaadno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan halkan uga hambalyeynaya uga mahad celinaya taageerayaasheeda sharafta leh intaa ila socda hawsheeda dhinaca ka riixaya si qurux badan oo aan caadifadi ku jirin ila waday waxaan leeyahay guntii gunaanadkii khayr baynu rajaynaynaa guul baynu keenaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh